dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimada gobolka Banaadir waxay farxad gelinaysaa shaqadaadii iyo soo noqoshadaadii dhamaanteena walwal ayaan ku jirnay inta naga maqneed alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u mahad celinayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala dalkaaga ku soo kasay adigoo caafimaad qabto inaan la taagan tahay mahadaas Allah subxaanahu wa ta'aala iska leh waxaan kale u mahad celinaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasaaraha xukuumadda iyo dawladda Qatar iyo safiirka Soomaaliya u fadhiyay Qatar oo garab istaagay bukaankeeni arxan laabayaasha ku dhaawacay qarxii ka dhacay aqalka dawladda hoose inta ku dhimatayna ilaahay naxariis janna Allah siiyo inta noo badbaadayna waxaan leeyahay ilaahay caafimaad taam ah Allah siiyo inta noo dhiman iyagoo nabad qaba Allah ku soo aruuriyo dalkooda hooyo dhalinyaro tan waxay tahay inaan isku duubanahay ay matalaysaa gudoomiye Zeynab waxay ahayd qof iimaankeedu u sugan yahay tawxiidkeeda afka ku haysatay markay dhaawacmaysay erayga kaliya ee dhahaysay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xamdisay ahayd Zeynab iimaankeeda u sugnaa ilaahay wuu soo badbaadiyay laakiin waxaan rabnaa inaysan noqonin inaan isku hadafkeena inuu ahaado go'aan aan kala dagaalamayna cadawga dadkeena waxtarka leh baabi'inayo inuu noqdo hadafkeeni waad aragteen arxan laabayaashii ayaan dhaweyd la qabay lagu dilaynayay gobolada ciidamadeena xoogga dalka dagaalka ku jiro sahayda ay wateen qof walba muwaadin Soomaaliyeed uu aragay waxa ay wateen tufaax ay wateen wax walba ay wateen kuweenan inay ku baahnaadaan ama ay dhibaateysnaadaan ama aan la abaawilin taasi inaysan dhalinyarada Soomaaliyeed taasi ay u istaagaan dhalinyarada dagaalada ku jiro cadawga baacsanayo gobolada ku dagaalamayo iyo kuwa jidadka taagan magaalada Muqdisho dhexdeeda inaan garab u noqono aan caawino aan garab istaagno aan u sameeyno inaan isku abaabul u sameeyno aan sheegna xataa waxay hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed cidaan isticmaalin ma jiro social media hale waxay qabtaan inaad ku faalisaan ama aad ku amaantaan dhiirigelinayay u noqonaysaa iska daayna wax kale u qabataan dhalinyaro waxaan rabaa isku duubni inaan muujino cadawgu waa ka adagnahay waan dhameyn karnaa waa baabi'in karnaa laakiin ayaan noqonin kuwa cadawga inta baacsado ka baqo cadawga ka baqi mayno waa iska celinaynaa Zeynab ayaa tusaalo ee dhalinyarada Soomaaliyeed Zeynab degmada lagu soo weeraray way taagneed hal habeen kama maqnaanin gobolka lagu soo dhibaato ee ku gaartay maanta waxay diyaar u tahay bari degmadeeda inay ka shaqeyso dhalinyaro tusaale Zeynab ha idin noqdo waqtiga leedahay waqtigaadu waa dhimanay laakiin adoo u dagaalamaysid dadkaaga iyo dalkaaga ku dhimo 15 SYL anaga maanta waa ka awood badannahay xornimada iyo gumaysiga la dagaaleen cadow marka adiga horumarka ku diidan hooyo baahan kugu soo bartay waxbarasho inaad adiga maanta ku fiirsatid guryaha in lagu qarsado annagana aan ku daawano taasi inaysan dhicin waa mahadsantihiin